calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid kusoo dhawaada warka habeenimo ee calansida media fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar kombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimco soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xiisad u dhaxaysa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo isku haysta dhul dadweynaha ay leeyihiin isla markaasina booliiska iyo militariga ayaa qoryo xooggan isku haysta faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa xiisad ka dhalatay muran iyo isqabqabsi hareeyay dhul ku yaala agagaarka iskuul booliisiya halkaasi oo ay isku haystaan ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya dhulkan la isku haysto ayaa ah goob qabuuro ah oo ku taala dhanka xeebta ee degmada Xamar Jajab sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka isla markaasina ciidamo kala wata laba sargaal ayaa halkaasi hub isku qaatay wararka ayaa sheegay in xiisadani ay timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa badda ay isku dayeen inay dhismo ku bilaabaan dhulkaasi oo u dhaxeeya xarunta iskuul booliisiya iyo isbitaalka caanka ah ee Yardameeli balse waxaa ka hor yimid ciidan kale oo militari ahi saraakiisha kala hogaaminaysa ciidamadaasi ayaa mid kasta wuxuu sheeganayaa inuu isagu leeyahay dhulkaasi waxaana laga cabsi qabaa inuu dagaal xooggan oo halkaasi ka dhaco qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamo hubaysan iyo gaadiidka dagaal lagu arkayay degmada Xamar Jajab gaar ahaan dhulka lagu muransan yahay si kastaba ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan xiisadaasi balse inta badan waxa magaalada Muqdisho ku soo laabtay isku dhacyada ciidamada ee ka dhasha isqabqabsi la xiriira dhulka la isku haysto dhulkaasi maadaama uu yahay dhul dadweyne lama oga sida ay dowladda federaalka Soomaaliya u maareyn doonto hase ahaatee ma aha markii ugu horeysay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay hub isku qaataan dhinaca kale muxuu General Odawa kala hadlay taliyaha midowga Yurub ee Soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya guuto Odawa Yuusuf Raaga ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku qaabilay saraakiil uu hogaaminayo taliyaha howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya labada dhinac ayaa ka wada hadlay dib u dhiska ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan kor u qaadista tababarada ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan Odawa oo kulanka ka hadlay ayaa ugu horeyn taliyaha howlgalka midowga Yurub ee Soomaaliya uga mahadceliyay taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhankooda saraakiisha howlgalka AUTM ayaa muujiyay sida ay ugu qanacsan yihiin wada shaqaynta kala dhaxaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ururka midowga Yurub ayaa si weyn dowladda federaalka Soomaaliya ugu taageero dib u dhiska ciidamada iyo sidoo kale tababaradooda dhinaca kale xog dowladda federaalka Soomaaliya oo si qarsoodi ah ciidamo ugu qorayso deegaanada Somaliland ila wareedyo ka tirsan dadka deegaanka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamo ka qorayso deegaano ka tirsan Somaliland warkan oo aad loo qariyay ayaa laga helay ila ka tirsan odayaasha deegaanka ee ku nool magaalooyinka Laascaanood iyo Ceerigaabo waxaa sidoo kale ay xaqiijiyeen in xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay ku leeyihiin tirada ciidanka oo aan si rasmi ah loo haynin ayaa la sheegay in la qoray 2 jeer oo markiiba la qoray ciidan aan ka yareen 400 ilaa 500 oo askari bilowgii ciidanka la qorayay ayaa ka mid noqday kumanaan askari ee loo qaaday dalkaas Eritrea halka bilo ka horna la qoray kuwa kale oo aan la sheegin halka la geeyay waxaase la xaqiijiyay in loo qortay ciidannimo dhalinyarada tababarka loo qaaday ayaa qaarkood la sheegay in lagu tababaro meelo ka mid ah gobolada dalka halka qaar kalena loo qaado dalka dibadiisa lama oga in loo tababarayo qalalaase laga abuuro Somaliland iyo in loo qortay ka mid noqoshada ciidamada dowladda Soomaaliya hase yeeshee odayaasha deegaanka ayaa sheegay inay walaac ka qabaan arrintaasi maadaama dhalinyaro hadda ka hor in la qoray la geeyay Eritrea la sheegayna inay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay Tigray isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya waqtigeeda dhamaaday aan marnaba la aamini karin dowladda Soomaaliya ayaa dhawaanahan waxay si hoose ula macaamilaysay dadka ka soo jeeda qabaa'ilada aan awood badan ku lahayn Somaliland iyo Puntland ee tabashooyinka qaba waxaana dhawaan ay Puntland ku eedeysay dowladda federaalka inay hurisay qalalaase ka dhan ah deegaanada dhahar hase ahaatee halkaasi banaanbax xooggan oo ka dhacay kadibna ciidamada Puntland ay halkaasi rasaas ku fureen madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo iyo la taliyihiisa Fahad Yaasiin ayaa ah kuwa aan marnaba sirtooda la fahmi karin isla markaasina ciidamada dhalinyarada Soomaaliyeed inay qortaan una diraan dalkaasi Eritrea isla markaasina howlo gaar ah ku fusho fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madasha badbaado qaran ayaa hanjabaad culus u diray. waxa uu yidhi wakhtigayna xoogayna maskaxdayna waxaan ku bixinaynaa sidii dalka uusan u qabsan kalitalis macangag ah oo ula jeedo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo. waxa uu yidhi ilaahay idinkiisa farmaajo waa uu jabayaa, xoog dhiig iyo maskax wax kasta waan ku bixinaynaa ayuu yidhi waraysi uu siiyey idaacadda kulmiye ee gudaha magaalada muqdisho. hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waraysi kulul uu siiyey warbaahinta kaga hadlay arrimo dhowr ahi oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka dalka, shirkii xalane ka dhacay, qodobada weli la isku mari la'yahay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in iyagoo mucaaradka ahi ay isku dayeen dadaalo la isku keenayo dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka, balse arrintaasi ay fashilmatay, isagoona tallaabadaasi ku eedeeyey madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo. hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ee wakhtigiisa dhammaaday ku dhaliilay inuusan rabin in dalka ay ka dhacdo doorasho nabdoon, isagoona sheegay inuu doonayo muddo kororsi iyo doorasho boob ahi sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay in beesha caalamka ay u dulqaadan weysay sida ay wax u wadaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya, islamarkaasina arrintaani ay suuragal tahay in faragelin toos ah lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed dalka. waxaa sii kordhaya eedda ay xubnaha mucaaradka soomaaliya ay u jeedinayaan madaxda dowladda, islamarkaasina marar badan ay ku celceliyeen in madaxda haatan talada haysa aysan rabin tartan doorasho, balse dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ahi. si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waraysigiisa kusoo gebagabeeyey dadka soomaaliyeed oo ganacsanaya islamarkaasina ku sugan gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa laga doonayaa inta aysan hantidooda beelin, waxaa loo baahan yahay in maskaxda laysku darsado islamarkaasina layska dulqaado ayuu yidhi kalitalis macangag ahi inta uusan nagu xoogaysanin. hadda ayay qabatin leedahay, hadda qarash yar ayaa ku baxaya ayuu yidhi, maadaama uu cusub yahay. mar haddii uu xoogaysto kalitalis waxa uu yidhi muddo badan ayuuna dultaagnaan doonaa, ilaahay idinkiis wuu jabayaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo hanjabaadiisa aan sidaan oo kale hore loogu baran, islamarkaasina xanaaq ka muuqda. dhinaca kale maxay tahay arrinta ay isku qabteen janan iyo axmed madoobe? wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan nuur janan oo dhowaan heshiis la galay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah gaar ahaan xaaladda dowlad goboleedkaasi. janan ayaa marka hore shaaca ka qaaday arrimaha ay isku qabteen axmed madoobe oo uu ku eedeeyey in keliya uu doonayo inuu noqdo qofka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya ee jubbaland, islamarkaasina uusan waxba u ogolayn qof kale sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale waxa uu tilmaamay in labadii sane ee ugu dambeysay ay dib u dhac wajahaysay jubbaland, islamarkaasina uu fadhiid noqday maamulka axmed madoobe. ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay in ilaa iyo hadda aan lasoo magacaabin golaha wasiirada jubbaland, maamulka hadda jirana uu isku soo koobay axmed madoobe. hadalka janan ayaa kusoo aadaya maalmo kadib markii ay dowladda kusoo dhaweysay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. arrintaasi heshiis dowladeed lama dhihi kare, waa heshiis qaraabo, maadaama madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday qaraabo yihiin, si toosana u heshiiyeen. dowladdii qarannimada soomaaliyeed oo shalay ku raad joogtay dembiile ahaa, maanta ma la dhihi karaa ninkii dembiilaha ahaa ayay soo dhaweysay? maya, waxaa soo dhaweeyey oo keliya farmaajo dadka u shaqeeya, islamarkaasina soo dhaweeyey waxaana heshiiyey wasiirkii hore ee jubbaland oo dembiile ah iyo madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday oo ilmo adeero ah. dhinaca kale puntland oo digniin culus u dirtay shaqaalaha qaramada midoobay iyo hal arrin oo cusub oo soo saartay. dowlad goboleedka puntland ayaa digniin adag u dirtay shaqaalaha qaramada midoobay ee ku sugan deegaanada kuwaasi oo qaarkood ay diideen inay bixiyaan canshuurta, sida uu sheegay xeer ilaalinta puntland maxamed xareed faarax. xeer ilaaliyaha ku-xigeenka puntland oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay inay jiraan 4 qof oo ka mid ahay howlwadeennada UN-ka oo diiday bixinta canshuurta ay ku waajibisay dowlad goboleedka puntland, islamarkaasina laga qaadi doono tallaabo. xeer ilaaliya ku-xigeenka ayaa ku hanjabay in xubnahaas ay maxkamadda horgeyn doonaan haddii ay canshuurta ku bixin waayaan kama dambays 3 bisha afraad ee 2021. sidoo kale waxa uu xusay inay jiraan 5 xubnood oo kale oo ayaguna aan weli bixin canshuurta oo ka tirsan UN-ka. ma aha markii ugu horreysay maamulka puntland uu soo bandhigo magacyada xubno ka howlgala hay-adda UN-ka oo ay ka dalbanayaan inay bixiyaan canshuur, waxayna dhowr jeer oo hore xeer ilaalinta puntland baahisay magacyada shaqaale ay sheegtay inaysan bixin canshuurta puntland.
dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.